dalka ugu weyn caalamka dal daboolaya dhulka aan ku noolnahay 10%, dal xajmi ahaan ka weyn meeraha Pluto, dal ay ku taalo goobta ugu qabow dunida, dal ka mid ah saddexda quwadood ugu awoodda badan caalamka, dal xuduud la leh 14 dal madax bannaan. Magacaygu waa Jaabir Cusmaan JB, halkan waa nolosha dhalinta Soomaaliyeed. ku soo dhawow xikmaso. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe dhaho YouTube-keena mahadsanid. daawadaha sharafta leh wax ka ogow xaqiiqooyin aan hore uga ogeyn dalka Ruushka. ku soo dhawow mowduuceena maanta. jamhuuriyadda Ruushka waa dalka ugu dhulka ballaaran adduunka, dhul ku fadhiya 17 milyan kiiloomitir square. Ruushka waxa uu ka weyn yahay Mareykanka 2 jeer. sidoo kale daawadaha sharafta leh, Ruushka waxa uu ka weyn yahay meeraha Pluto. dalkan wuxuu xuduud la leeyahay 14 dal oo madax bannaan oo kala ah Norway, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, China, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia iyo Waqooyiga Korea. dalka Ruushka waxa uu leeyahay 11 deegaan waqti oo kala duwan. tusaale ahaan bariga iyo waqooyiga Ruushka waxa u dhaxaysa 10 saacadood. bariga Ruushka markii ay qoraxda u soo baxayso, galbeedkana way u sii dhacaysaa, waana hal dal. daawade dalka Ruushka waxa uu dhacaa 2 qaaradood oo kala ah Yurub iyo Asia. Ruushka iyo Mareykanka waxa u dhaxeeya kaliya 4 kiiloomitir. waxaa kala qaybiya marinka Bering, waxaana halkaas dhacaan 2 jasiiradood kala hoos tagaan Mareykanka iyo Ruushka. jasiiradda Mareykanka hoos tagta waxay ka tirsan tahay gobolka Alaska. waxaa xusud mudan in gobolkaas asal ahaan lahaa Ruushka, laakiin 1860 ayuu Mareykanka ka iibsaday, wuxuuna ka siiyey lacag dhan 7.2 milyan. daawade 5 meelood meel geedaha dunida waxay ku yaalaan Ruushka, waa 643 bilyan oo geeda ah. waxay Ruushka ka dhigaysaa dalka ugu geedaha badan caalamka. ku dhawaad 45 wadankan ah waxaa daboolay geedo, badankoodana waxay ku yaalaan keymaha Boreal. caasimada dalka Ruushka waa Moscow. midda layaabka leh, caasimada Ruushka waxay caan ku tahay ciriiriga gawaarida taraafikada jaamka, sidaa darteed dadka lacagta leh waxay kireystaan gawaarida gurmadka ah oo been abuur ah. gawaaridaas ayaa iska dhigaya inay wadaan dad dhaawac ah, laakiin waxaa gaarigaas dhexdiisa ku jira qof taajir ah oo doonaya inuu gurigiisa ama xaruntiisa shaqo si dhaqso ah ku gaaro. daawada Ruushka waa wadanka ugu horeeyay dayax-gacmeed u diray hawada sare. waxaa lagu magacaabi jiray dayax-gacmeedkaas Sputnik, waxa ayna direen sanadka markuu ahaa 1957. Uri Gagarin u dhashay dalka Ruushka ayaa ah qofka ugu horeeyay bini'aadam ah oo taga hawada sare sanadka markuu ahaa 1961. daawada Oymicon ayaa ah meesha ugu qabow dunida oo idil. heerqabowgeeda ayaa gaaraya -71 digrii, waa meesha ugu hooseeya. waxaad arkaysaa qof bini'aadan ah ay baalasha indhihiisa baraf noqdeen qabowga dartiis. dalka Ruushka waxaa ku yaala harada ugu qotada dheer caalamka ee Baikal. haradan waxay haysataa 20% biyaha macaan adduunka. sidoo kale Ruushka waxaa ku yaala webiga ugu dheer qaaradda Yurub, waxaana lagu magacaabaa Volga. dalka Ruushka waa mid leh wadada tareen ugu dheer caalamka, wadadaasoo lagu magacaabo Trans-Siberian Railway. dhererkeedu uu gaarayo 9288 kiiloomitir square. inta badan magaalooyinka ugu waaweyn Ruushka waxay adeegsadaan tareenada dhulka hoostiisa mara. boostooyinka tareen dalka Ruushka waa kuwa leh jaranjarooyinka korontada ku shaqeeya ugu dhaadheer caalamka. taawada luqadda rasmiga dalkan looga hadlo waa Russian, laakiin dalkan sidoo kale waxaa laga hadlaa luqado badan oo ka mid ah Tatar, Ruvesh, Kyrgyz iyo Chechen. Ruushka waxa uu soo saaraa shidaalka noocyadiisa kala duwan. Ruushka waa dalka haysta kaydka ugu weyn ee caalamka ee gaaska dabiiciga ah, waana dalka saddexaad naftada ugu badan soo saaro. Ruushka waxaa laga helaa halka ugu wasakhaysan dunida waa harada Karachay oo loo aqoonsan yahay halka ugu wasakhaysan dhulka. dalka Ruushka waa dalka haysta hubka nuclear-ka ugu badan caalamka, wuxuuna haystaa ilaa 6,000 madax nuclear ah. daawada dhanka luqadda Ruushka hadaa mar un tagto waxaa ku soo wajahaya caqabad. waxaa yara dadka Ruushka Ingiriis inay ku hadlaan ama afaf kale. Ruushka waa ummad afafkooda jecel, meel walba waxaa ku qoran af Ruush. cunsuriyad waxaa isdhehaysaa dadka Ruushka waa cunsuriyiin, laakiin sidaas ma aha. waxaa yar in aad cunsuriyad la kulanto Ruushka markaad joogto. ugu dambeyn, haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar si uu dad badan u gaaro, la wadaag asxaabtaada, share dheh. intaan muuqaalkan leecnaa ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.